بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا والاليال برنامج كيني أي نقوم قعدرني الديني ودقن وأن كسو قادنو أخلاق دا إيا دقن إيا أنشح وناكسن ميد كميدا أخلاق دا وناكسن أيينو سو قادننا أو هناسه أما مصيرك أما غيره دا وحالي دهدو غيرada iyo hinaasuhu laba nooc baa loo qaybiyaa mid maxmuud oo wanaagsan oo uu qofku amaan ku mudan doono iyo mid markaa madmuum ah oo liidato iyaduna xun ta wanaagsan markaa waxa ku tilmaaman oo lagu sifeeyay ilaahay baa naftiisa ku sifeeyay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo dadka muuminiinta ah nabigeena waxa laga wariyay xadiis ku yaala saxiixaynka Bukhari iyo Muslim صحابي قال له سعد ابن عبادة رضي الله عنه أيا وحو يدي إله بان كدارتي هادان أركو حاس كيغا oo nin kale macnaha la socota labadoodaba seef man ku kala goyn lahaa buu yiri mana u nixi lahayn markaasay saxaabadii arintii Sacad uu ku hadlay ayay nabiga u sheegeen rasuulkuna wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam ata'jabuna min ghirati Sacad warninka Sacad la yiraahdo غيرada iyo hinaaska galay miyad la cajabaysan ad la yaabaysan ana aghyaru minhu ana bakasi hinaasa badan Sacad bin Ubaada ha wallahu aghyaru minni anigana Allah ayaa maartay tabaaraka wa taala iga si غير badan xadiis kale isna saxiixaynka ku yaala waxa uu tilmaamaya oo rasuulku uu yiri sallallahu alayhi wa sallam ilaah baa ugu غير badan ugu hinaas badan سيدا أوجد بإلهي سبحانه وتعالى وحو حرمي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فاحشوين كي حمانها ان تموقتا إيا تقرصون بوا حرمي إلهي با مركا او أمان شعل سيدا أوجد بإلهي نفتي سنة او أماني تبارك وتعالى وياهي أحاديث تاسي وحينوت المامسة إن غيرضو ان أي تهي وحشي وناكسن oo qofku inuu cirdiga wax la yiraahdo qofka waxyaalaha meesha ceebtu ay ka soo gaadho oo inta badan ah caruurta iyo dumarka uu qaba iyo gabadhii walaashiisa iyo eedadii iyo habaryarihii waa cirdigiisa dadku way jecel inay cirdigooda ilaashadaan cirdiga inuu qofkiisu u diido in xumaan iyo faaxisho lagu la kaco ama ay ayagu ku kacaan wax xun taas la yiraahdo غيرada marka waa inuu qofku ka qiirooda waa inuu ka kacaa نبينا وحنا شجع عليه الصلاة والسلام نلا ده ديوث أو ما هو الديوث يا رسول الله ديوث كوا محي وانين كمركا غير هذا الله نوي وانين كمركا شعل الكيسة حمان تلا شعل حاس كيس حمان يزين ولا شعلي نبينا وحنا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث نين ديوث الجنة قال ما يبوت المام رسولك صلى الله عليه وسلم waa nin bila غيره ah waxa ka dhimatay qalbigiiba dhintay ma غيره male wuxuu noqday fakaanahu khinzir wa doofaaro kale noqday way doofaarka sidaan ogsoonay Soomaalidu waxay ku maamahda doofaarka ficil la'aan baa loo cadaaba oo ay wajeedaan doofaarku ma hinaaso oo ninka doofaarka ah naagta doofaarada ah de kama hinaasaya haday 10 nin oo kale la socoto waxba gali maayaan waa ficil bila ficil way sida awgeed ba culimo badan waxay leeyihiin culimada islaamka kamida qofka cunad hilibka doofaarka xaaraanta ah hadad cunto غيرadi ba ka tagis yaani waxaad noqotay maxay khinziir oo kala doofaar kala noqonaysa subhanallah la ilaha illa allah waxa kale ay tusaale u soo qaataan dadka reer galbeedka oo waxa weeyaan iyagu maadaama hilibka doofaarka ay cunaan waxa ku yar غيرada صفدان يا أخلاق النوع عن وكو يرتاي ما غيرونيان وعداي هويداش إس ستار هويدا واحد دقد ولا شيء واحد دقد هبريرتي واحد دقد إن أنتيدو واحد دقد وامحي حد ستار كوا محي معناه فيلمان تاعون حبي مثليسا هوليوود باي كوجرتا واحد انتي كوجرتا هادنا و كفانيا ايو وديوثنimo ayu halka la soo fadhiya wuxuu leeyahay waaxid digad subhanallah la ilaha illa allah marka waxa ka dhintay qalbigi dareemayay غيرada iyo hinaaska iyo masayrkii ba ka dhintay subhanallah la ilaha illa allah waayahay marka hadaba waxaan rabnaa waa maxay farqiga u dhaxeeya غيرada wanaagsan iyo ta xun
ها غيرة وناكسن يتحن النبي waxa laga wariyay xadiis kale imaam an-Nasa'i sunankiisa ku soo wariyay rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuu jecel yahay غيرada wanaagsan ilaahayna wuu necab yahay غيرada nooceeda xun macnaha hinaasaha ta wanaagsan iyo ta xun baa kala jira maaragta way ka wanaagsan waa qofku inuu ka hinaaso waxyaalaha ilaahay xarimay tabaaraka wa taala sida ilaahayba غيرada iyo hinaasaha wuxuu ka hinaasaa ما حرمه الله وحا إلهي حرمي إيا وحي حدود إلهي كقدبا أيو إلهي كهناسيا سبحانه وتعالى مid ku haboono isaga maaragtay u qalantaweey ma aha bani aadamka iyo insaanka iyo makhluuqaadka kale waa mid isaga u gaar ah oo u cuntanto u gaar ah rasuul ilaahay oo ku munaasaba weey tabaaraka wa taala hadaba waxa imanaysa farqiga u dhaxeeya maxay yihiin ta wanaagsan iyo ta xun ta wanaagsan waxa weeye waa qofkii oo qalbigiisi uu diidayo waxa xun buu diidaya inantiisi buu arkay oo suuqa qawanaan ku soconaysa xijaab la'aan iyo mara xun oo jeexjeexan ama marada ku dhajisan sidato oo suuqa dhexdiisa maraysa uu diiday qalbigiisa diidaya waxa galaysa qeyra yahinaas xaaskiisi buu u diidayeen inay qaawiso ubadkiisi buu controlaya غير leeyahay qofkaasi subhanallah waa nooca wanaagsan waxaana shardi oo ah in waxa qofku uu qeyranayo ee ficilka qeyrada ama hinaaso intaanu ku kicin waa in waxan hubo oo haday dhanni iyo mala xunun oo ay tahay inna ba'da dhanni ithmun yani malaha intiisa badan ama qaar badan oo kamida waaba dambi buu ilaahay tilmaamay subhanahu wa ta'ala qeyrada xun iyo hinaasaha xun waa maxay waa ta ku dhisan malaha xun oo mala maaragtay aan qofkii waxaan hubin marka hore uu ka qeyranayo iyo iyada oo xadkeeda dhaafaysa oo gabadhii baa hinaastay midlan ama masayrtay oo ninkeedii bay ka hinaastay gabadhu inay hinaasto waa sifo ilaahay uu ku abuuray haday qalbigeedu nool yahay gabadhu waa inay hinaasto ceeb ma waa sharafteeda bale waa mahmuud waa waxay ku amaanan tahay oo gabadhaasi masayr bay leedahay hinaasay leedahay qeyray leedahay waxa xun baa ay ka kacda qofkaas nin iyo gabadh ku doonaba hadduu ku sifaysan yahay waa shay wanaagsan waa akhlaaq wanaagsan weey laakiin waxa la diidayaa in xadgudub keento ama ficil ka sii darad maaragtay wixii ay ka hinaasaysaa ay keento oo mesela waxaad arkaysaa gabadh baa hinaastay aniga waxa la ii sheegay gabadh baa ninkeedii ka hinaastay dabadeedna hinaaskii iyo masayrkii waa madax marayo ninkii iska hurdo gurigiisa oo mala gabadh buu la guursaday dabadeedna inta cadhootay ay saliid kulul ay ninkii ku daadis ninkii waa aragtay wuu wada gubtay subhanallah jidhkiisa taasi maaha masayr waa nooca ilaahay necab yahay noocaas waxa weeye waa nooca qeyrada madmuumka ah ee xun ee liidata ee keentay xadgudub inuu qofkii uu ku kaco aabba ayaa isaga laftigiisii la sheegay inuu hinaasay ama masayr baa ku dhacay waa wanaagsan yahay inuu qeyro yeesho qofkii hinaasiya masayr uu yeesho waa wanaagsan yahay waxa xun uu ka dhaqaaqo laakiin muxuu yeelay gabadhii uu dhalay ama wiilkii uu dhalay buu dilay oo uu gowracay waxa kaloo la sheegay niman walaala ah oo walaashood dilay oo kaga siiyay maxay ku dileen waxay ku eedeeyeen inay xumaan iyo fildambiyada ay gashay dabadeedna hinaaskii iyo masayrkii baa maaragtay qeyradii baa gashayo dabadeedna waxay ku kaceen fal aan lagaba filanin oo dil subhanallah la ilaha illallah dilkana xaq uma lihid inaad wax disho waxa wax dili kara diinta islaamka dawlad iyo xukuumad iyo nidaam baa wax dili kara qaatilka wax dilay iyo ka zaaniga zinaystay iyo ka tuugay waxaday waxa yani xuduudda waxa fuliya ashkhas ma qof ma anigu fulin maayo adiguna fulin mays qofkan waxa fuliya dawlad baa fulis maxkamad baa lagu soo eedeeyaa dambigaas u galay waxa soo galay markhaatiyaal baa loo raadiyaa cadayn baa loo raadiyaa laakiin hadad adigu tahay kii markhaatiga ahaa kii xaakimka ahaa kii falkana fulinaya iyo fuliyayaashii waxa weeyaan waa shay aan banaan xataa hadii waxa aad sameynayso ficilka noocaas aad kula kacayso uu yahay wax run oo dhab oo jira wax ay dadku ka asmacayaan oo laga aqbalayo midnaba ma subhanallah nabigeena kaleey salaatu wasalaam xadiis kale oo isna saxiixa waxa laga soo wariyay nin baa wuxuu yiri ya rasuulullah hadan gabadha aan qabo aan ku arko gogol dhaaf yani nin kale iyadoo la huruuda hadan ku arko waan dilaya buuri nabigu wuxuu yiri hadaa disho adiga annaguna aadaan ku dilayna خلاص subhanallah ninkaasi ilaahay amarkiisa subhanallah wixii uu nabiga weydiiyay way ku dhaceen xaaskiisina wuu ku arkay maxay zinadii iyo gogol dhaafkii buu ku arkay markaasay dafirtay dabadeena maxkamadii rasuulka loo yimi oo nabigu wuxuu dhahay hadaan ii keenin afartii markhaati waxaan dhabarkaaga ku la dhacaya waxa weeyaan 80 jeedala
markaasa ilaahay suuratu nuur aayadaha ku jira waa ka soo dejiyay ilaahay subxaanahu wa tacaala aladiina yarmuuna aswaajahum kuwa maaragtay dumarkooda ku ganaya zinada inay zinaysteen walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusahum oo aan markhaati haysanin naftooda mooyaane wixii ay yeelayeen iyo markaa licaankii masalata licaan ba halkaa ka timi in ay islacnadayaan calaa kulli xaal halkaa waxaynu ka qaadanaynaa xukunka diinta islaamka cidda fulisa adiga maaha cidda adigu fulinaysaa shaksiga adiga maaha anigana maaha dowlad baa fulisa maxkamad baa fulinaysa nidaam bay leedahay haddii kale dadku ay bilaa nidaam yeeshaan oo qof walba uu dhaho aniguna xuduudaan fulinaya saan doona yeelaya dee waxa weeye waa qalalaansaha iyo dhibaatada haysata caalamka islaamka ayay ka mid isku soo wada duubo waxaan leenahay walaalayaal khiiradu waa shay wanaagsan inaad ku sifaysan tahood waxa xun ka qiiroto diido oo aad ka jiridhacoto subxaan allah oo markaad aragto suuqa magaalada Hargeysa ama Muqdisho gabadh qaawan oo maryo xunxuno dhajisa sidato oo saas isugu laalaaban oo cagaheedii qaybo badan muuqdaan oo timaheedu muuqato laabteedu muuqato waa inay dareen ku galaa haddii aanad dareen balahayn marka qalbigaaga uu dhintay weeyaan qalbigaaga uu dhintay marka qaabkaad ugu hortagaysidna waa sidii nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii marka waxa weeye man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi qofkii marka arkay xumaan gacantiisa waxa kaga qabta haduu awoodo waa awoodii marka awooddaas waa maxay nin iyo gabadh bad aragtay wada sheekaysanaya oo si fool xun wada hadlaya oo suuqa dhexdiisa ku wada hadlaya awooddaadi wax weyn aad kala kaxayso oo tiraado war kala taga xumaantan iyo waxaan joojiya gabadh qaawan bad aragto tima qaawan inaad gabadhii soo qabataad marka waxa weeyaan xumaantii aad ka joojiso taasna waa shay wanaagsan haddaad awood u yeelan weydo inaad xumaantii maaragtay aad joojiso muxuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam fa bilisaanihi carabkaaga wax uga sheeg gabadh xijaab la'aan ay haysad aragtay qof maaragtay ficil xun sameeyo fil dambiyeed iyo khamri iyo waxaad aragtay iyo maaragtay xashiishad iyo daroogo iyo qaad iyo sigaar maxaa laga rabaa carabkaaga wax uga sheeg waani wacdi wax uga sheeg subhanallah la ilaha illa allah sidoo kale haday taas aad awoodi kar weydo fa bi qalbihi qalbigaaga ka nac oo xumaanti markaad adigu aragto ha ku raaxaysan inay qalbigaaga ka nac hadii kale qalbigaaga wixii qiiradii ku jirtay ayaa dhimanaysa saxaabada rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh qaar baa waxay caan ku ahaayeen xagga qiirada oo hinaasaha aad bay u hinaasi jireen waxaa ka mid ah sayid cumar iyo sacd ibnu cubaada oo aan ka soo warrabnay bal sacd ibnu cubaada waxa la tilmaamayaa inaanu weligii guursanin gabadh aan bikra ahayn weligii buu guursan gabadhu guursan iyo bikra wayna noqotaa hadduu furo xaaskiisana cidi kuma dhici jirin qofna kuma dhici jirin inuu gabadha uu guursado subxaanallah واي عمر بن الخطاب وحا حديث كي صحيحين كي يالي بخاري مسلم بكو يالي رسولك واكي يدي عليه الصلاة والسلام وار رياضيو حالي تولي وحان تغي جنة من تغي ديتنا وحا لي تسمحين قصر جنة كو يالا مركا قبرد با هرفر دي ويسيسانيس ويسا قادانيس مركا ساين ويدي من لهذا القصر قصر كان يا اسكالي مركا سالي يدي عمر بن الخطاب ديتنا فوليتو waa soo jeestay buu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii Umar lay sheegay ayaan xasuustay qiiradiisa hinaasihiisa deetanaha waan soo noqday subhanallah fa baka Umar wuu ooyay markaas wuxuu dhahay alayka agharu ya rasuulallah ma adigan kugu hinaasaya ya rasuulallah sallallahu alayhi wasallam marka saxaabada laftigoodu way lahaayeen qiirada nabigu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ku sifaysan nooca wanaagsan ku sifaysan munaasabka ku haboon adigana waxa laga rabaa inaad akhlaaqda iyo sifada yeelato oo aad iska ilaaliso ficilka dayuutnimada iyo xumaanta inaad ehelkaaga ku eegto xun marka xuduudda ka baxaysana aad iska dayso taasi way ilaahay ma jecla ilaahay uu nacbay xuduudda ka baxaysa tamaaragtay adigu gacantaada wax walba ku fulinaysa xaakimka iyo markhaatiga iyo wax walba aad noqonaysid ilaahay uu nacab yahay nidaamkaas uu ilaahay jecel yahay tabaaraka wa tacaala wallahu a'la wa a'lam ilaahay ba xaqoog subhanahu wa ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh